بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادا channel كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هداتك عصبتهاي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفرو سي أي برامجتو هدبا يكوسو قاران إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى مانتا waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad iyo aad u muhiima mowduucaasi wuxuu khuseeyaa walaalo fara badanna ay su'aalo badan iga soo weydiiyaan sixirka la soo celceliyo ama sixirka la soo cusboonaysiiyo ee tajdiidka lagu soo sameeyo qaabkee la iskaga cilaajin karayaa qaabkee looga hortagi karayaa su'aal labaad ayaa ku lifaaqan ama daba socota qofkii isixray maba garanayaba haddii aan ka taxadari lahaa oo iska ilaalin lahaa maba garanayo laba jawaabood oo insha allah mulakhasa oo kooban ayaan insha allah idinka soo gudbinaya marka koobaad sixirka la soo cusboonaysiinayo ee la soo celcelinayo inta badan sababaha uu ku yimaadaa waxa weeyaan qofku isdhigasho oo uu isdhigtay maxaan uga jeedaa isdhigasho uu xanuunkan isku dhigtay yacni qofku haddii uu xanuunka isku fiirsado haddii uu xanuunka sahashado haddii uu dhagaha ka faraysto oo uu is yidhaahdo ma sixranid sixir kuma hayo maxaa lagaa sixran il baa ku haysaba dadka qaar baa niyadda u qabooda marka la il baa ku haysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yuusan tilmaamin waxaad ummadayda badankooda layn doona oo dadkana qabriga gelin doonta xoolahana dheriga gelin doonta miyuusan oran waa isha marka ishu iyadoonba sahlanayn ayaa haddana qofkii xanuunkiisii oo uu u jeedo calaamadihii ama sheekhu calaamadihii uga warramay ayuu qofkii leeyahay war maya sixir kuma hayo marka isdhigashada dhinaca xanuunkan uu qofku isku fiirsado horta iyaga waa u fursad qolada suxarada iyo qofkan adiga ku dulminaya isaga waa u abshir in aadan xanuunkaagii fahansanayn in aadan xanuunkii iska cilaajinaynin in aadan xanuunkii iska daaweynaynin tajdiidku xaaladdaa wuu soo laalaabtaa xaaladda labaad ee uu soo laabtay waa qof go-aan gaaray oo ku tashaday inuu iscilaajiyo oo isquraamiyo oo xanuunkan ka takhalluso kabacdi markii uu ka adkaaday oo wax ka khafiifeen oo uu caafimaad qofkii dareemay halkii wixii hore ee noloshiisii uu samayn jiray halkii ka sii waday adkaartii iska ilaaway meel dhigay asturnaantii gabadhii meel iska dhigatay xafladihii ay iska daysay ee ay go-aanka ka gaadhay inay baadhiyo tagto aroosyo tagto oo ay dib u bilowdo xaaladaas qofkii waxay ka dhigan tahay cadowgii ayuu isku dhiibay bacdamaa sixirkani uu yahay imtixaan waa qofka wax lagu imtixaamayo idan dadka waad ka duwan tahay waayo adiga cadow daalim ah baad leedahay gacanna aan kuula imaanaynin qorina aan kuula imaanayn laakiinse wax ka daran kugu samaynaya idan bacdamaa ay arrintaasi jirto in aad is-ilaalisid ayaa loo baahan yahay 24 hour dadka qaar ba wuxuu ku leeyahay 24 hour say isku ilaalin karaya waa inaad barataa waa inaad is-ilaalisaa waa inaad taxadartaa xaalad waxaad gaaraysaa haddaad is-ilaalisid uusan shaydaanka lagu soo jinka lagu soo wakiilan lahaa ee wakiilu sixirka ah xaalad indhaha ilaahay tirayo oo uusan ku arki karaynin baad gaaraysaa xaalad saaxirka horena waa uga sheekay saaxirkii soo islaamay ka toobad celiyay wuxuu yiri dadkii nagu adkaatay inaanu sixirno waa dadkii 24 hour 24 saaca is ilaaliyay ku dadaalay adkaarta ku dadaalay weysada ku dadaalay salaada waqtigeed dadka xataa shayaadiintii baa waxay gaaneen heer inay yiraahdaan qofkan iska daa inaanu sixirnay maba arki karayno idan xaaladda qofku isagoo isdaaweeyay oo caafimaaday
uu dib ka xumaaday oo qofkii salaadii dayacay, weysadii dayacay, qur-aankii dayacay, noloshii dayacay, xaaladaas waa xaala khadiira oo sixirka tajdiidka qofkaas mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba loo soo sameeyo, waana wax uu qofku isagu sabab u yahay. intaasi waa xaaladaha keenta sixirkan. waaya qaabkee ku garan kartaa in sixirkan lagu soo cusboonaysiiyo? marka koobaad axlaam baad arkaysaa, riyooyin macruuf ah. riyooyinkaas inta ugu badan waxaad arki doontaa qof cunto ku siinaya, cuntadaana kugu khasbaya. mararka qaar waxaad arkaysaa qof wax kuu samaynaya. waxyaalaha aad arkay sidoo macruufa waxaa ka mid ah wasakh, saxaro, gudaafad, nijaaso, xamaamyo ayaa iyaduna waxa loo yaqaana aad ku riyoonaysaa. labadaa riyo waa laba riyo macruufa. calaamada saddexaad qofku inuu soo tooso isaga oo daalan oo qofkii garbihii la haysto oo uu leeyahay war xalay tolo dhan ma lagu garaacay, xalay oo dhan ma feer baa lagugu waday, ma dagaal baa lagugu waday, ma lagugu tulis istaagtaagay, maxaa ku haysta? qofkii isagoo daalan ayuu qofkii soo toosaya. xaaladaasna qofku waa sixirka tajdiidka, sixirkii baa ku socda. xaaladahaas waa xaaladaha joogtada ah ee uu qofku yeelanayo, waa marka loo soo cusboonaysiinayo. idan waxa loo yaqaano maxaa looga hortagi karayaa? xaaladaas maxaa la iskaga ilaalin karayaa? laba jawaabood. haddii aadan iska cilaajin xanuunkan oo weli aadanba bilaabin inaad iska daaweysid, talada koobaad waa inaad iska cilaajisid. waa in aadan isku dhigan xanuunkan. xaaladda aad iscilaajisay, arrimaha lagaga baahan yahay waxa weeyaan waa in adkaarta iyo weysada aad xoogga saartid iyo salaada waqtigeeda inaad ku tukatid. adkaarta maxaan uga jeedaa? haddaad afkaaga bartid mucawadataynka iyo aayatul kursiga, ku dhihi maayo 40 jeer suuratu saafaad akhri, ku dhihi maayo 40 jeer waxaad akhrisaa suuratu cabasa, ku dhihi maayo 40 jeer waxaad 50 jeer aayatul kursiga ku dhihi maayo. subaxii iyo maqribkii ama gelinka dambe, habeenkiina aad ku seexatid, mar walba oo uu dareen ku galana aad mucawadataynka ka fataa, way kugu filan yihiin. iyo aayatul kursigana sidoo kale haddii aad laasimtid. waxaa kaloo macruufa sixirka waxa soo naqliyaa waa shayaadiinta iyo jimanka. waxaad ogsoontihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu inoo tilmaamay guryaheenna haddii suuratulbaqara laga shido ama lagu akhriyo inaysan soo geli karaynin. xaaladaana waa xaalad oo waad ku dadaalaysa haddaad akhrisan karaysid, haddaad laazimi karaysid. wattabacuu maa tatlu shayaaiin calaa mulki sulaymaan, aayadda haddaad laazimi karaysid noloshaada caadiga ah, yani adig taasi ku khusaysa. laakiinse waxyaalaha laasimka ah ee aadan ka tagi karaynin waa mucawadataynka iyo aayatul kursi. misla fahno dadku waxa afkeena ku fudud way dhayarsadaan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu tilmaamay waxaa ka mid ah koonkan wax fara badan oo yaalla, ama cuntooyin ah ama waxyaalo carabkeena ku fudud oo dadku ay ilowsan yihiin, dadku aysan ku baraarugsanayn. tusaale basiidan ku siinaya. bilaha xurumka ilaahay xurmeeyey ee bisha ramadaan ka mid tahay, ee bisha xaj ka mid tahay, dulxaj ay ka mid tahay, shacbaan, hadda bishan aynu ku jirnaa waa shacbaan. ma cid baa ku baraarugsan fadliga shacbaan leedahay? ma cid baa isla ramadaan sidii aad u dadaali jirtay oo kale u dadaal bishatan? rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay bishatan waa bisha keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha loo bandhigo. ma wax sahlanba? camalkii aad soo shaqaysanaysa noloshaada oo ilaahay la horkeenayo. fa subxaana allah, dadku rasuulku wuxuu yidhi waa la ilowsiiyaa bishatan kama faa'iidaysan. ramadaan baa soo socda bay leeyihin.
bishan fadligeeda iyo fadaa'ilkeeda marka insaanku waa sida waxa afkooda ku fudud ma aaminsan ictiqaadiya waxa laga yaabaa tan hadda konton jeer aayadda akhri inaad kontonkii jeer akhrisid laakiin mucawadateen waan aqaana qul a'uudu birabbi naas qul a'uudu birabbil falaq qul a'uudu birabbil falaq maxaa ka akhrinaya waa maalin walba soo salaadan ku dhex akhrista meesha insaanka laga galaa marka waa halka qalbigii ay iyo waxaan u akhrinay ayaan iswaafaqsanay dadku haddii iimaan saxa ay la imaan lahaayeen mala cuntada iyo arsaaqada iyo lacagta mala samada looga soo daadin lahaa anu heerkaasaan marka qaar taagana hadday dadku iimaan dhaba la imaan lahaayeen sida shimbirtu buulka marka ay ka baxdo iyadoo dharagsan u soo noqonayso ayay malaa bini aadamku inta banaanka u baxaan iyagoo dharagsan oo wax walba soo helay oo adduunyo soo helay soo noqon lahay laakiin iimaankiiba aakhir zaman weeyaan iimaankiiba dhammaaday marka qofkii qiimaba lama laha waxa laga yaabaa qofkii inuu yiraahdo hadda tara quraanka ugu akhriyo dan sare iscilaaja dadku wallahi dhowr jeer baan iscilaajiyay wallahi dhowr jeer baa quraan is saaray هذا خوفك دكتور كده اللي ماي دكتور خدته شربوتك ليه لين شربو دكتور وتك تضباط شربو دكتور وتك كده ماي تضباط شربو دكتور وتك لكن لا بتشرو قرآن لو آخر وحلقة يوم لا بتشرو قرآن سوى صار قرآن كم كم حقف كامل نسوح تريد إذا معوذتين كي آية الكرسي أنت أتكد دالسد شر يا سحر يا شياطين كوسو دوان كرسا إسكت يقول جاك تسوي استاك كرسا من شرط بل أذوق قلبك كسي دا وحكا جرا بل أذوق قلبك أفر بل أذوق اعتقاد لبا آمن اعتقاد لبا آمن إذن تسوى تاس لو مسع سبونيسين كرسا وايه نقطة قدام بيسوء عن كسر جبانية وسؤال شيء لبعض عن شيء سيدي قفك كسحري أوغان كريسة قفك كسحري سيدي أوغان كريسة هرت إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة عدك قرصون ما يسمى جرته إلهي سبحانه وتعالى وأليه كأبورتي وأليه الإحداد اللي حاتكون لما يستري وأليه مسلم كإسلام كي دين الإسلام من لدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأليه كوافتشيي هرت الله صلى الله عليه إلهي أكتسنا وحوك مقرصوبة ماني والبا وحال لغيابا إن دباتوين لغابت بعدنا ما أنت سفر بعد كباق وحال لغيابا إن ديارة قرى دعيرها ما أنت بناك هاد آذي لهي لك وابد اسكديس باورين وكتشير لها هرت الله صلى الله عليه ماني والبا كبت بعدنا سيدا درادين قف كان ساحرك السحرك كوغو أما إهلكاغا كدح جرا أما فاميليغا كدح جرا way fududahay in lagu tuso bal adigu hal arin ii samee bal salaatul layl xilliga saqbarka kowda habeenimo labada habeenimo inta soo kacdid bal ilaahi si dhaba u bari ilaahi si dhaba wax weydiiso ilaahi si dhaba wax u sheego ilaahi si dhaba ugu waran ilaahi si dhaba ugu dulooy kadib hadii lagu tusi waayo waxaan ku sheegayaa waa been ama riyo ku arag ama toos lagu tuso wada arkaysa qofkii ku dhibaatay dadka qaarna wayba ka war hayaanba dadka qaar way ka war hayaan cidii dhibtatan u geysatay cidii sixirtay heblaayo oo ehelkayga kamid ah sixirtay wuu og yahay qofku heblaayo oo ehelkayga kamid ah heblaayo oo aan saaxiibanahay heblaayo oo halkan maraysa hebel oo halkaas ah adiga insaan baa tahay waxaa la rabaa hadaaba ogaatay in qofkaasi uu ku dhibaateeyay xeelad allaale iyo xeeladii qofkaas aad uga fogaan lahayd inaad falowgeeda gashay gurigaaga inaadan ku soo dhaweysan walow adeerka ha ahaado ka fogay banaanada ku qaabil marka aad la hadlaysid adkaar qabso weyse ku dadaal intaad weysada qabtay salaad qabtay adkaarta qabtay waxba cidna kuma soo dhawaan karayso arrinka loo ku sheegaya hadiiba qofkani aad garanaysid oo aaba taqaanidba ka naxso waxaad ku tiraahdaa hebel ama heblaayo waa kula socda inaad sixir igu wadid
وان كلا الصعدة ها حيسقرن maxaan ka hadlayaa qofaad ka shakisantahay sheegi maayo qofaad dhab u ogtahay in waxaan kugu wado riyada lagu tuso lagu soo celiyo ila bini aadam baa tahay qof lagu tusay baan ka hadlayaa laakiin qof inaad iska tuuntid ceeb weeye qof inaad iska waad ka shakin kartaa sax insaan baa tahay shaka ku soo jeedo laakiin qofka inaad tuhunkii ku cadaysid waxa laga yaabaa rubama iswa laakiin waxaan ka hadlayaa dadka qaar baa og waana say u badan yihiin dadku marka waxaad leedahay hebel sixirka aad igu wadid haddaad joojin weydid ehel iyo qaraababa agtooda kugu fadeexadeynaya wallaahi iyo bilaahi haddaan mar dambe wax dareemo waan bini aadam baan wada dareemay haddaan mar dambe wax arko bini aadamka ilaahay baan kugu fadeexadeynaya qaraabada iyo ehelkan kuu sheegay marka qofku wuu baqaya qofkaas wuu ka shallaayaya waxa laga yaabaa inuu saaxirka yiraahdo ka jooja aniga mar dambe mar rabo gabadhan badeeda wiilkayna badiisa kale mar rabo laana qofku uu fadeexado wuxuu ka baqayaa in lagu ogaado sixirkan uu wado wuxuu ka baqayaa in lagu ogaado sixirkan ummadii uu ku halaagayo laajli dalika qofka ku cadde marka isagay u taal haduu sii wadaya hadii kale laakiin adiga already ha ku ogaado inaad ogaato subhanallah إذن قفكو هدي وقرابة سير دوية والد كاوية هاي قفك اللي بعد هذا وضع أبتيها لحمي ويا أذيرك لحمي ويا دتك سوى دتك كوجود لو دتك موتة ولا لك أو لحمي هدول اللي بعد دت بعشر أنا كده بيحكي كريد دت كان فرسمة الله لا يفرسمة دي جوري جهداد وجوري كرتد وجور جوري جهداد وجرح بيحكي كرتد وجرح بحمل دق كريسين انت كعذر دارن كرسيد كعذر دارو حدا waxa cajiiba qof wuxuu ku leeyahay gurigi aan ku noolaa qof kamid ah ayaa isixray cuntadiina isaga kariyo marka seebay isku qabanaysaa Soomaali walba cuntadii lagu daray baayo marka soo kala caafimaadka aad u badbaadso qofka meesha ka carta weeye idan marka waan dheereeyay runtii inaan muuqaalka 4 daqiiqo 5 daqiiqo ku soo koobaan rabo aad iga raali ahaad Allah idin barakeey waan dheereeyay runtii aad baan dheereeyay jazaakumullahu khayran wa inoo iyo xalqad iyo kulan kale insha Allah biidnillah sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad